oo qofka bini aadamka ilaahay jirkiisa wuxuu siiyay difaac heegan ku jira difaacaagaas ba waxa la barayaa xanuunka noociisa dabeetana weerarku bilaabaya sida loo dilaabo markiiba baranaya markuu barto uu record garaynaya yani khalaaya lamfaawiya white blood cells kaagu waxay leeyihiin T cellsku qaybo sida dabaabadaha iyo kaarayaasha iyo ciidamada u dagaalama qaybo gantaala rida qaybo wax basaasa qaybo qoraal la sameeya waxa soo dhan ilaahay wuxuu ku kaydiyay dhigaaga cad white blood cells kaaga waxa soo dhan leh xanuunku markuu jirka soo galo qola basaasta waxay sheegtaa wax dheeraadii inuu jirka soo galay waxa loo dalbadaa ciidamada maafiicda qaybo kamid ah ku garaaca la yiraahdaa hadii madfacaasi dilo recordka lagu qoraa markastoo xanuunkaasi yimaado madfac hebel buu baahan yahay ku dhufo hadduu madfacaasi dili waayo T cellska qaybaha kale T8 T4 baa loo dalbadaa oo ah ciidamada kaarayaasha iyo kuwa dabeetana dagaal baa ka dhaca dagaalka waxa sababma waxa ka dhasha malaxdan iyo dheecaamada tan iyo waxa kan bay waa shuhadadii meesha ku dhimatay labadii kooxood ee isgalay wixii meesha kaga dhintay waa waxa kan xumadan iyo waxan ka karaya bay leeyeen waa dagaalkaasi wixii ka soo baxay idan jirkaaga ilaahay baa diyaariyay waxa lagu talagalay marka diyaarintaada in la baro xanuunada qaar si marka yimaadaan ba uga takhalusi karo talaalku waa inta uu markaa